barnaamijka sheeko gaaban waxaad raadiyo muqdisho ka dhagaysataan toddobaadkiiba 2 jeer. dhagaystayaasha qaayaha lahow sidaanu horey idinkaga ballan qaadnay waxaan diyaar u nahay inaan sheekooyinkiina halkan ka baahino. toddobaadkan waxaan nasiib u yeeshay oo aan sheekadiisa halkan ka baahinaynaa dhagayste ka mid ah dadka barnaamijkan xiiseeya. waa Dr. Cali Cusmaan Cali. sheekada magaceeda waxaa la yiraahdaa Aayatiinkaygu waa xagee. Madiino waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan. waxay ku soo barbaartay duleedka degmada Cadale. waxay la nooleyd aabaheed iyo hooyadeed oo caruur kaligeed ka qabay. aabaheed tuuladaas si aad ah ayaa looga qadarin jiray, waxaana u sabab ahaa inuu aad ugu dheereeyay tafsiirka quraanka kariimka ah, macallinna uu ka ahaa dugsi quraan oo tuuladaas ku yiil. tuulada ay Madiina ku nooleyd waxaa deganaa qoysas badan oo leh gabdho ay wada jaalahaayeen, xoolahana wada raaci jireen. waxaa ka mid ahaa Xaliimo, Sacdiya iyo Luul. maalin maalmaha ka mid ah iyadoo ay jirto qorax kulul, qof kastana uu doonayo inuu xoolihiisa durbaba waraabiyo, ayaa Madiina waxay ka mid ahayd dadkii ugu soo horreeyay ee ceelka yimaada si ay si dhaqso ah u waraabiso xoolaheeda, iyadoo ka fikiraysa inay durba ku noqoto guriga si ay uga qayb gasho howlaha degdega ah ee guriga looga baahan yahay. ayaa si lama filaan ah waxaa u soo gashay Sacdiya oo doonaysay inay ka wada hormarto dadkii ka soo horreeyay iyadoon aan cidna xushmayn. Madiina iyo Sacdiya oo isgaranayay waxaa dhex martay doodan. Madiina oo hadalka ku horreysay ayaa tiri: walaal Sacdiya, miyaadan cuquba ka baqayn? dadkana xilqaamayn, aniga ayaa kaaga baxaya miiladayda. sug naa waxaa loo joogin baad sheegtaa ee waxyaalahan oo kale hayla soo gelin. ceelku dadka waa ka wada dhexeeyaa. Allahu akbar, ma walaalnimadeennii baa hadalkaas dhalisay. walaal raalli ahow. kadib dadkii oo dhan waxay ku wada jeesteen Sacdiyo iyagoo ku cadaynaya gardaradeedii. sidaas darteed Sacdiya oo doonaysay inay gardaradeedii daboosho ayaa dagaal bareer ah waxay ku soo qaaday Madiino. halkaasna waxay kala kulantay jab weyn oo ah in daanka midig looga dhigay calaamad aan weligeed ka go'ayn. arrintii waxay gaartay labadii qoys ee gabdhaha dhalay. si aayar ah oo ay asluubi ku dheehan tahay ayaa lagu dhameeyey. habeenay tahay 4 mugdi u dambaysa ayaa si lama filaan ah wadnaha looga soo booday Madiina hooyadeed, waxaana loola cararay isbitaalkii markaa u dhowaa. saacado kadibna waxaa ka haaday naftii, waxayna ku dardaarantay inaan Madiina la dar xumayn oo ah ubadka keliya ee ifka kaga tagtay. waxaana isugu yimid dadkii deganaa xaafadda oo idil. si sharaf leh ayaana loo duugay, darinteediina waa la laabay. mar ay ka soo wareegtay dhowr bilood geeridii Madiina hooyadeed ayaa odayaashii tuulada deganaa ay soo booqdeen odaygii islaantu ka dhimatay. kadib markii la martigeliyey loona dubay bunkoodii ayay waxay u sheegeen inay aqal u dhisi doonaan, go'aanna ku gaareen inay siiyaan Sacdiya oo aabaheed markaa fadhiyey. si wanaagsanna way isu gacan qaadeen. habeenkii markii ay odayaashii tageen ayaa odaygii iyo gabadhiisii Madiina ahayd waxaa dhex maray doodan. waxayna u dhacday sida tan: aabe, waxaan kuu sheegayaa in odayaashii tuuladu ay isiiyeen Sacdiyo, adiguna sidaa ula soco, waan ka yeelay. aabba, calafku waa halkiisa. ilaahay gaari wanaagsan ha kaaga dhigo. allah ha ii aqbalo ducadaada aabe. dhowr ayaamood ka bacdi ayaa odaygii loo dhisay gabadhii Sacdiye ahayd loona guri keenay. halkaas oo ay ka bilowday shaqadii lagu yiqiinay hablaha Soomaaliyeed. waqti aan aad u badnayn ka bacdi waxaa maalin maalmaha ka mid ah fursad ay ku wada sheekaystaan heleen Sacdiye iyo Madiina, waxaana dhex martay erayadan:
ma filayn miyaa arrintan iyada ah wax kasta waa dhacayaan ee maxaad sugaysaa eedo marna walaal wax tagay tiigsimaad ma lehe calooshaada xumaanta ka bixi saa waalid baad ii tahay daankayga midaad ku dhigtay miyaan iloobi karaa hadda ayaan haystaa waqti aan kaaga gudsan karo hadalkaa oo dhan waxaan u qaadanayaa canaan iyo toosin ee waxba ka dhigi maayo waxba afgobaadsigaa ha ii keenin ee guriga meel kale ka raadso sacdiyo oo oofinaysa axdigii ay hore u qaaday oo ahaa inay guriga ka eriso madiina ayaa durbadiiba waxay bilowday inay ku dirdirto odaygii iyadoo mar kastaba si kale wax u tusinaysa markiiba odaygii waxaa galay fakar kaasoo ahaa habkii ugu wanaagsanaa ee uu u kala qarin lahaa xaaskiisa iyo gabadhiisa sina wax waa ku xallin waaye madiina oo ahayd gabadh aada u caqli badan ayaa goosatay markay aragtay in odaygu uu isku buuqay inay ka tagto guriga oo idil una tagto habaryarteed oo lagu sheegay inay ku nooshahay xamar arrintaana waxay la socodsiisay aabbaheed isna waa ka yeelay maalintu waxay ahayd ciid waxaa jirtay saxansaxo aada u caraf badan waxaa dhinacyada ceelgaab ka yeerayay seeri ay carruurtu ku damaashaadaysay dhallinyarada iyo odayaasha waxay xidhnaayeen dharkoodii kuwii ugu bilicsanaa iyagoo isku lahaa ciid wanaagsan iyo ciid mubaarak madiino waxay dhex istaagtay suuqa ceelgaab iyadoo aan qofna ka garanayn waxay ku cataabaysay ma bari baan aadaa mise koonfur carro aadan cid ka aqoon xumaa waxaa guuxeedaas maqlay sheekh salaad oo ka yimid salaadii ciidda oo qalbigiisa ku haysta wacdigii uu masaajidka ka soo maqlay oo ahaa in laysu naxariisto sheekh salaad iyo madiina waxaa dhex maray hadalladan maanay maxaa kugu dhacay oo la cataabaysaa carrada ayaanan cid ka garanayn oo dool ayaan ku imid rabbi iyo rag ayaan gargaar uga baahanahay maanay bis anigaa ku wadaya oo ku dhex geynaya sacdiyo safiyo xukun iyo xaliimo oo ah gabdhahayga kadib waxay raaceen baabuurkii aadayay degmada howlwadaag madiina oo aada ula yaabanayd baabuurta oo ay soo raacayeen gabdho aada u bilicsan oo ku nool xamar isla markaasna waxa ay doodan dhex martay gabadh surwaal xiran timahana u furan yihiin oo ay isgarab fadhiyeen acuudu bilaahi ma gabar baa mise waa wiil waxa siloona waa sidee gabadhii baabuurka saarnayd waxa ay garatay inay tahay reer miyi waxayna ugu jawaabtay walaal gabar baanahay waxba ha iga cuudo bilaysan habka socdaa sidan ah goormaa laga tagay hiddihii iyo dhaqankii hablaha soomaaliyeed haybadda u lahaayeen ma sidan baa fiican gabadhii baabuurka saarnayd waxay ugu jawaabtay haddana sida tan walaalay nin kastaba qumanihiisa qoorta ugu jira ee adiga sida kula fiican dooro aniguna waxaan ahay xor talow gabadhaan iyo aniga yaa jid leh alla yaana kala saara cabbaar markii ay doodeen waxaa la soo gaaray gurigii salaad kadibna baabuurkii ayaa la joojiyey way ka soo degeen waxayna abbaareen gurigii oo lahaa albaab cagaaran kadib waxay garaaceen albaabkii waxaana ka furtay gabadhiisii yarayd ee safiya oo oday salaad uu aada u jeclaa waxayna markiiba kula soo booday aabe ciid mubaarak salaad oo ku fiiriyey il naxariis leh ayaa siiyey 2 gini kadib safiyo waxay weydiisay aabbaheed yay tahay gabadhani wuxuuna ugu jawaabay aabe waa walaasha oo aan dhibyaraan ku dhalay kadib sheekh salaad wuxuu isugu yeeray dhammaan carruurtiisii iyo xaaskiisii wuxuuna ku wargeliyey gabadhani waxay ka mid ahaan doontaa carruurta guriga ku nool wixii qeyray khasaaraha ee la qaybsanayso ilaa looga helo ciddii ay xamar u timid
waayo maanta markaan ka soo noqday salaada ayaan la kulmay ayadoo ceelgaab taagan qofna aan ka garanaynin xamar meel ay aadanaa garan la sidaasina ayay igu qasabtay in aan keeno gurigeenna. gabdhihii oday salaad dhalay iyagoo si hoosa iskula hadlaya ayay waxay yidhaahdeen, gabadhu reer baadiye weeye mooye aad bay u qurux badan tahay, iskuna la-eg tahay, una jir dhisan tahay. kadib markii dhowr bilood ay ka soo wareegtay ayna kala baratay xaafaddii ay degganayd, aad iyo aadna ugu dhegan nugushahay reerka, ayaa oday salaad maalin maalmaha ka mid ah iyadoo la qabeynaysa ku yidhi, berito haddii uu ilaahi yidhaahdo waxaan ku geynayaa dugsi qur-aan. adeer 2 jeer ayaan qur-aanka dhameeyey, waayo aabbahe iyaa macallin dugsi ah, wax kaloo la bartaa ma jiraan. haa aabe, haddii aad qur-aanka taqaanid waxaan berito ku geynayaa iskuul birbaati ah oo laga barto afka soomaaliga, xisaabta, carabiga iyo ingiriiska. waagii markuu baryey ayaa waxaa la geeyey iskuulkii, laguna qoray inay gasho 4 galabnimo si ay subaxdii uga qayb gasho howlaha guriga ka socda. arrintaa iyada ah markay dhacday waxaa xoogaa hinaasah galay gabdhihii uu dhalay oday salaad, waayo marka hore iyaga iskuul la geeyey kuna saaqideen, kadibna arkeen in madiina ay gaartay buugga 4aad, iyo iyadoo kula hadlaysa af ingiriiska dhakhaatiir ay digfeer ugu tagtay iyadoo xanuunsan. maalin maalmaha ka mid ah waxaa wada sheekaystay xaaskii salaad iyo habar axado oo ay daris yihiin, waxayna ku wada hadleen sida tan, waxaan maqlay in odaygaadu uu guursan doono gabadha guriga jooga ee maxaa ka jira. xaaskii salaadna waxay ugu jawaabtay, alla marka wax laguu sheego ayaad wax garataa, tuhunkan awalba waan qabay, afkiisa madiine mooye wax kale waa laga waayey, laakiin hadda ayay inoo tahay, ama iyada ama aniga ayaa guriga naag ka noqonaysa. galabtii markii ay 9 saac iyo bar ahayd ayay madiina waxay siday caadadu ahayd aaday iskuulkii, oo galabtaas la sugayey imtixaan hore loo galay natiijadiisa. waxaa iskuulkii soo galay macallinkii oo wada waraaqihii imtixaanka oo saxan. macallinkaas waxaa magaciisa la yidhaahdaa axmedey, wuxuu arday ka yahay jaamacadda gahayr, dhaqaalihiisuna aad ayuu u liitay, hooyadii keligii ayay qabtay, waxay muufo ka dubaysay degmada Wadajir, waxay isku celcelin jireen lacagta uu ka qaato iskuulka birvaatiga ah iyo hantida ay ka hesho meheradaas. nasiib wanaag madiina waxay imtixaankii ku gudubtay 100% waxayna noqotay qofka koowaad. axmedey iyo madiina waxaa dhex maray sheekadan. madiino walaalay macaan, waxaan kugu waaninayaa inaad waxbarashadaada halkaaga aad ka sii wado oo aad ku sii dadaashid intaad ifka joogtid. waan kaa ballan qaadayaa in aan sii wato, laakiin nin adeerkay ah oo aan la joogo oo aad iigu fiican ayaa naagtiisa iyo gabdhihiisu i ximiyaan, ee meel fiican markaan helo ayaan si fiican u dadaali doonaa. wallaahi waa dhab waxaad sheegaysid, laakiin aniga ayaa kuu jooga ee walwal iska dheeree intaan ifka noolahay. xaaskii salaad oo tix raacaysa sheekadii habar axado ayaa iyada iyo odaygeedii salaad isdhaafsadeen erayadan soo socda. salaadow, ayaantan tallaabo 3aad ayaad qaaday, xaafadda oo dhanna waa lagaa ogsoon yahay inaad gelaysid guur labaad, madiina ayaadna u aqaltaagaysaa. laa ilaaha ila allaahu maxameda rasuulullah. wallaahi bilaahi in aysan salaad iga jibinin guur baaba sheegaysaaye. safiya ayaa dhinac ka soo booday, waxayna tiri, aabe taaba waxaa ka daran, waxaa la moodaa inaad keligeed dhashay sida aad u jeceshahay. anigu kollay gurigan madiina wada joogi mayno, waxaan aadayaa guriga adeer Saciid. islaantii ayaa sheekada bartanka kaga soo dhacday oo tiri, salaad, runta ma rabtaa? beri subax waxaa guriga ka baxaya madiino ama aniga iyo carruurtayda. innaa lilaahi, haddayba arrintu sidaa tahay
madiine ayaa baxaysaa ayadaa dhib yare. dhegaystayaasha qaayaha lahow waxaan maanta intaa ku joojinaynaa qaybtii koobaad. waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybta labaad ee sheekada magaceedu yahay aayatiinkaygu waa xaggee.